وعن ونكسن ما أنت وحنا سوق هذا برنامج جارة أو نوجو مقدرني سعودالك ميجا وحن ما أنت كسوق هذا سعودالك ميجا عيار رقمات لقى عيار NFD حتى تكون نوشة هاي وقوي بري ألتقانو سومالي NFD أما وقوي بري كينيا حتى سومالي يكون نوشة أنا سومالي قلبي عيار تصارك هو عيار رقمات سوجرينه ولا عياره وامو واسو يجدو عيار تصارك waxaa la ciyaaraa xiliya u gaar ah inta badan waa ciyaar loo hasaawo tago inta badan waa ciyaarada baldega ama maalmaha farxadda la ciyaaro haddaba maanta hadaan soo qaadan ciyaarta saarku waxa qaada gabdhaha oo ku luuqeeya heesa raguna jaan iyo cirib ayay kaga qayb qaataan oo waa tuntaan ama waa dheelaan dhawaan ayaan muuqaalka adaawan doontaan waxaan ku tagay miiga anigoo markaa la kulmay meel aroos ka jiro munaasabad aroos jirto galabkina la dheelayo saarka intiisa badan waxa la ciyaaraa galbihii markuu aroos jiro waxaas la ciyaaraa markuu haasaawa iyo baashaal iska yahay habeenkii xilliga dambe waatay gabadhu lahayd libaax leel buu dhacaa laamay leel buu dilaa afku leedha u duwaa luquntu lixliixya ana leelkan ciyaa waa gabadhii saarka qaadaysay wixii kaloo tiri sidii raxantii maroodi raacna rimi raacna dhali raacna dabar rugsaneys sideedaan wax u rusheen rafiiq iyo rixin marabi ayadoo marka Soomaaliyadu la weyn tahay oo Soomaalidu awood ay leeyahay tilmaamayso waa waqooyi bari Kenya ama NFD gaar ahaan waxay kaloo tiri sida qaaluu sici qulqulay qoobka isla dhacay dareemada soo qacdabi ee guusoo yahay qariib weylaha ay qabac dhahaan ameelada lala qamaam martida lagu qaacinayo yaa markuu waa dad aftahaniina waa dad waxay kaloo leedahay markii saararkii hore iyo gabdhihii iyo taariikhaha waxaan ka maqalnay dadku ay noo sheegeen ama aan ururinay kamid ahaa inay gabdhuhu fariin ku gudbin jireen ay leedahay maxaa la dhihi jiray bidaan geel loo ma raaco bidaan wiil loo ma raaco bidaan gabar loo ma raaco ay lahayd وكاي لهد بدان ويل لو مره او بدان ويل waxa u badan mid baar leeg oo bayadan bishaar magaciisa yahay balaayada markay timaado geedaha baarkooda male bilaawaha baraqda dhigi bilaash noqda ka buux وكاي لهد بدان geel loo maraaco بدان geel waxa u badan hal baar leeg oo bayadan burbur iyo baanyo cunay cagta ay tahay baruur eegi buro loola kaco bilaalibin garow ka dhigi bilooda geel u badan بدان gabar loo maraaco بدان gabar waxa u badan mid baar leeg oo bayadan bishoy magaceeda yahay bilicdeeda la daawanayo eegi buulkii aroos la geeyo badkay lahayd bakeeri aan xalani karin bilaash noqota basari ah naag u badan markuu waxay ahayd qaab maanseed dhameystiran waxay kaloo sameyn jirtay inay gubaabin jirtay ragu kolaad boodada bargoysa bilaawaha dhiigu yeel ay leedahay waxa halkan ka arki doontaa muuqaalkan wiil ku fororsaday saarka uu ku fororsanay wiilka wuxuu dareemay in halka looga badan yahay ama saaxiibadii ay joogin marka laga guusho ama laga cishada saarka wuxuu sameynaa ugu burura ama gabadha luuqdeedii ereyadeeda uu jeclaado jilibka ayuu dhiganayaa ama ugu fororsanaya haddii la diido gabdhaha waxaad arki doontaan way saarayaan sacabka ayay ku boobayaan si ay u qanciyaan
haddii lacala uu intaa waayo waxaa dhacaysaa inuu ableydiisa ama tooridiisa ama astiisa la baxo oo uu dhiig iska keena ama uu isgooyo asagoo markaa naftiisa ku qancinayo oo wax dhaqana uu soo jiray waxaa kaloo muuqaalka ku arki doontaan inkasta oo gabdhaha xilliyadan dambe la fahmi karin waxa ay ku luuqeynayaan iyo waxa ay sheegayaan inay gabdhaha sidaan ii sheegay ereyada maanseedkaas ay soo qaadan jireen waxaa la dafiri karin marka oo hubaal ah heesuhu la qaado inay Soomaalidu ku cusbaneen oo kontameeyadii 1900 ilaa 47 wixii ka dambeeyay ay soo kordheen qaabkan heesaha la xameynta ee rag iyo dumarka ay qaadayaan marka waxaan sameeynay baaritaan dheer saarku wuxuu soo jiray muddo 100 sano ka badan inta hadda taariikh lagu hayo markaad shaqalada fiiriso erey maanseedka ama miisaanka maansada shaqaladu uu ka sameeysan yahay heesku waxa u badan 9 10 ayaa u badan laakiin waxa cajiib ah heesaha ugu caansan Soomaalida ee la dhageystay fanaaniinta waa bari hobladu waa bari qaadi jireen iyo gabadhan heesayso ee miyiga ka heesayso marka isku dheeli tirto inay isku shaqal yihiin inay isku dheeli tiran tahay oo maansadaas ay dheeli tiran tahay marka waxaan waa wax hal abuur oo wax jiray waa wax soo jireen ah oo waxa la dafiri karin waxa kale oo muuqaalkan aad ka arki doontaan reerku xilliga barwaaqada la joogo inay xooluhu soo insaaraxaan ama weylaha ama maqasha ay ka hortagaan waxaad arki doontaa laxa 100 ka badan oo ka hortagayaan 100 naylood oo ayagu dhaleen laakiin lax walba ayna seegeenin nayl walba ayna seegeenin laxda dhashay ayadoo laxdana markaa dabada ka ursanayso oo ogaanaysa canuga inay kaadi tahay oo diideenin oo ka dhaqaaqeenin waxaad arki doontaa ratiga reerku ku guulo xilliyada galabkii in lagu dabro meel reerku ka dheereen asagoo markaa boodka ama reerka falanfooligiisa daaqayo aad arki doontaa waxaad kale arki doontaa sac weyrax ah oo markaan weeshi ama edagii meeshii weyluhu ku jireen aan fiiriyay aan damcay inaan kamerada ka duubo igu soo dhaqaaqay aad ba u mahadsantiin muuqaalo kale oo faahfaahin dheer waa arki doontaan waxaan ku soo koobayaa barnaamijka maanta gaarka aan ku eegi doono ciyaaraha intaasaan ku soo koobayaa sida idin sheegay waxaan noo dhiman ciyaarta diisowga waxaan noo dhiman ciyaarta waaleyda waxaan noo dhiman ciyaarta looloolka waxaan noo dhiman ama adaloolka sibasa u taqaanaan waa walaalkiin Cabdirasaaq Ibrahim Xuseen Cabdirasaaq ka baxay oo idin leh please subscribe YouTube channel ka Abwaan Cabdirasaaq ka baxay please subscribe YouTube channel ka Garissa channel aad buu u mahadsan yahay dhanka farsamada waxa iga caawinaya freelancer Cabdi Farax Shire aad baa idinku mahadcelinaa barnaamij dambe oo xiiso leh Go,